maanta waxaa la dhahaa haddaad rabto inaad isbedesho buug akhri, haddaad rabto inaad fikrad hesho buug akhri, haddaad rabto inaad fikirkaada shaqo ka dhigto shaqaalaysiiso macnaha ay shaqayso maxay implementation ku samaysan waxaa la dhahaa buug akhri, haddaad rabto inaad guul gaasho buug akhri. wax kastoo maanta nolol waxaa ka horeeya inaad wax akhriso. marka inuu qofka saa sameeyo wuxuu akhrinaya inuu noqdo majaal u jecel yahay qofka. aqooyinka ugu raagitaanka badan qofka Soomaaliga uu ku raago waxa qayb ka ah macalinimada. sababtan waxa yeelay qofka asoo kuliyad wax barasho la soo marininba macallin noqonayma. marka haddaad adiga physics iyo math soo barato ama biology chemistry soo barato ama geography history soo barato ama af Soomaali soo barato ama Carabi soo barato arsaaqda inta leeb ku jirtaaba waaba yaraanaysaa meel kale filika cid kale oo ku wadata ay yaraanaysaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابته جيمة شرفت له أكيد هذا برنامج كان حكمة هوار جيك مركلة ما يمرتنيها أستاذ كان أستاذ حسن بله أستاذي هذا هذا ما سنت ودوا مركلة هذا كلا أستاذي سؤالي أنا قد قلنا طبعا ورئيسي أنا ونذكر والد أنا بدنا مي كديسني يعني دلنيرت إنترنت والبرشة يو سيلف ديفلوبمنتي maadaama majaalka dhinacaas badanya su'aalahan geeka maata maadaama jaamacad dhigaaso jaamacada ardayda iyo dhamaantan naftaan aad xataa la kaabay in ilibkaas ka qabday qof walba ma fadhiyo buug akhri wal akhriyo buugaag akhriyo naftiis yani lan oo reader ama akhrista nagada laakiin hadana naga buug bilaabay dadlay ku heeray ama ku tabay ama ku aajisay cilad ku wees marka farsamo yar oo isla tan iyo meelogaasan oo wal yar ko aadis ama ciladaas la toosi karata qobni loo daaw karto aad ma santa oo xaqriska deeqaymo leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala aydiisa kood wuxuu ka bilaa iqra waxay ka mid tahay albaabka koowaad ee aqoon laga galo. dadka laakiin inta badan oo dhalinyarada waxay u arkaan in aqrisku aysan micno weyn u lahayn laakiin in 10 soo qaadato oo diri soo qaadato oo taas soo qaadato way kaga muhiimsan tahay. marka iqra wax weyn waay in qofka wax akhriyo waan cilada waajirta oo qofku waxa laga yaabaa inuu buug bilaabo iska dhigo mid kale bilaabo iska dhigo. marka taas ay ku xalin karnaa waxay la tahay farsamooyin badan jiro laakiin farsamaha ugu roon waxa kamid ah koow buugaag cinwaanadu yaryar horta qaado buug weyn qaado sababtoo buug weyn wuxuu u baahan yahay waqti badan qaado laba waqti go'an wax akhri kale saacad wax akhrinayso ha ciimnaato waqti loo geeyo meesha ka bilaawtay meesha ku dhamaato ha noqoto saddex marka kood wax badan in akhriso isku dayn hada buugan ka soo qaad 9 page waay maalinkii badhaha waxaan akhrinaa 9 page marka kaas ugu dhufo macna asaas ku sii baro waxa kamid ah saaxiibaha wax akhri la saaxiib oo saaxiib wax akhri la saaxiib si iyaga kugu dhiirigeliyaan in maxay ahaydii aad samayso. waxa kale oo kamid ah meelaha wax lagu akhriyo walow anaga aan meelaha aad ugu liidin ay qayb ka tahay in meelaha wax lagu akhriyo in qofka tago tan ugu dambayso oo qofkaas aan ku taageeri karno waxa waay in qofka fahmo in wax la akhriyo in tahay iftiinka noloshiisa bedeli karo. maanta waxa la dhahaa haddaad rabto inaad isbedesho buug akhri, haddaad rabto inaad fikrad hesho buug akhri, haddaad rabto inaad fikirkaada shaqo ka dhigto shaqaalaysiiso macnaha ay shaqayso maxay implementation ku samaysan waxa la buug akhri, haddaad rabto inaad guul gaasho buug akhri. wax kastoo maanta nolol waxaa ka horeeya inaad wax akhriso. marka inuu qofka saa sameeyo wuxuu akhrinaya inuu noqdo majaal u jecel yahay qofka. yani qof walba isku dooq maaha qof iyo luuqad wax ku akhrinayna ay noqoto luuqad u fahmi karo laakiin luuqad oo kaaga baahan inaad mar walba dictionary u raadayso xikmadda wax ku cajisana. marka haddaad la qabsato at least waxa aad jeclaan doono laakiin insha Allah inaad didaasho. ustaadi dabcan bointigaas aad sheegtay muhiimadda ay aan naftay sale ra'yiga ana majaalkaas ugu qowmeeta qofka buug yar ku bilaaway yari macna yaraan zayd difooy arabta fariim ilaa kutayb macna buug oo liiraayo macna taabku yar neer dhamayd حتى عادية توبركاس سيبرتو مجالكاس كفيلة الفراسة كتابة يرير أكو بلاو إنجليش هذا عربي هذا سومالي هذا بوغاك يرير هادو مكمل أرد بوغاك بدن آخري كستوني أنتون آخري
liiskan qoray maasha Allah walaal ma dareemas dhiirigelin marka sideeda ma hasanta su'aalo kale ma taa aad macallin aad naftay macallin hanagadi hadda wataa ha marka mushkilada macallinimada hadda jartamay aha oo waayay dambe ilin aragmeeta dadka oo yani walbarashado ilin ku faa'iideysan la aqoonto khibradiyo walbarashada ku rooreen ani macallinimada ku rooreen marka macallimiinta dad dhigaan waa muku sheego laakiin fuuqa kulli dhi ilmin alim lam wal kasoo lam wal ku gorosh badan marka dadka oo hatta macallimiinta geek wal dhikaayeen role model kan macallinimada iyo bad ku tabeen marka kan hadroogana barausnatis ninka taw doona badan marka macna مثلا شغله معلمنا شغله كمية مسمو because جيلك أما generation مجتمع لها صار هاي مركا يدينا ما يسامين كلا تول برشة مركا أسباب تؤجني يعني أو دغالي راضي ولا سجرا لكن دتك س لنكدير جلي كورا إني والسكول بران تصالة قفكو سوى شقيسو والبرد تطبر كورا يعني سو دغالي يكلا نهرات من يكلا كورات سوى كورا يادنا معلمة يقولي سيون لطن كلا جرا كورا مركا hamigaas macallimiinta oo macallimada ku bixin lahan kanaga korsi khibradii laga faa'iideysto استاذ يوم ما سنتاي horta xaqiiq macallinka waa udubka ama waa tiirka bulsho hadaad horumarinaysana meesha ugu muhiimsan lagu horumariyo dee waxbarasho waaye taas ciidan ma kari karto mar kasta oo macallinkii wanaagsanaa ee waxtarka lahay baxana dee meesha waxay imaanaya macallin oo kaas xoogaa unsika waalitaay oramayno halkaas marka bulshada ku dhaawacmaysa waana xaqiiqo in macallimiintu ay geediyeen oo macallinimadu ay geediyeen sababta jaamacadan maamulka soo noqday midahada maamulkeeda qayb ka macallin ahay semester kan bilowgiis waxa la yaabaa in dadku dhahaan xiisi dhiib way badan tahay laakiin waxa arkaysa dad tiro badan inay dhaxda kaaga tagaan oo waxa markii kaaga tag marka fiirsana hadii hata qiimaha adiga uu ka heli lahaa iyo qiimaha meesha isku helay inuu farqi yar u dhaxeeyo aan saa muhiim u ahayn ba hata marka qaarkood hata inuu lacag badan ku baxay hata ma aha laakiin wuxuu diidan yahay kiid buu arkaa marka taas waxyaabo loo bixi karo waxa koow ka in dawladdu ay nidaamka waxbarashada kordhiso sala kala nidaamka waxbarashada sala kala macallinimada jaamacada loo soo baxmo ana hadda macallin soo baray kulliyad kala bartay laakiin in la kordhiyo nidaamka macallimada la kordhiyo oo qofka asoo yar fildigiisa fildi macallin laga dhigo hadhow marka way adkaanaysaa inuu macallinimada baxo dawladdu maxay sidoo kale ka soo qaad macallimiintu waxay kamid tahay shaqooyinka ugu raagitaanka badan ee qofka Soomaaliga uu ku raago waxa qayb ka ah macallinimada sababtan waxay yeelay qofka asoo kulliyad waxbarasho la soo marininba macallin ma noqonay marka haddaad adiga physics iyo math soo barato ama biology chemistry soo barato ama geography history soo barato ama af Soomaali soo barato ama Carabi soo barato arsaaqda inta leeb ku jirtaaba waa yaraanaysaa meel kale filika cid kale oo ku wadata ay yaraanaysaa marka ku qasbanaanaysaa laakiin ninkan sharciga soo bartay haddaad tiraado macallin noqo birinina wuxuu leeyahay warniyo kaal noo imaa anaga noo shaqeey maxaa business ku geey hadduu business barto waa ka sii daranta marka haddii caafimaad barto waa ka sii daranta marka horta koow meesha laga soo bilaabo si loo laba macallimiinta ha loo arko inay haayaan marjac weyn inay haayaan dawladda iyo dadka ay ku xiran tahay ee macallimiinta shaqaaleysiinta maamulayaasha ay kamid tahay dadka xarumaha waxbarashada iskale ay kamid tahay macallimiinta waxay ku joogi karaan hasiyeen macallinka maanta waxyaabo ka cararaya hata ma aha qayb weyn lacag ka mid ah ee waxa qayb weyn ka si loo dhaqmo si loo dhaqmo waxa ka wada maanta goobaha waxbarashada meelaha ugu xun ay kamid tahay oo tacadiyada iyo dadka loo geysto macallimiinta loo geysto macallinka waxa la yaabaa inuusan cunugii la hadli karin inuusan go'aan lahayn yani yahay qof gacan ku jira ana tusaale ustaadi macallimiinta qaar ma sheegaan iskoolada qaar in liis oo macallimiinta gudbisan jiraan tusaale maamulka macallinka kooye liisa ka qorday lambar qorday macallinka kooye lambar qorday marka macallimiinta rogan haddii complain ama walyar awaadi soo been meel ay asxaabay liisa qoran wada batal lan kale warre marka waliba ka sii yaray buuqo
buuqa yar deji sama dis waxay kamid tahay waxyaabaha culayska oo jira macalinka marka xaquuq oo inta yar oo la siinay ahayn uu leeyahay ma jirto hatta marka qaar fasax male waxyaabaha aan aragnay kamid tahay macalin xanuunsaday xanuun katar habeenka ku soo booday oo maamulkiisu dhahay laba imaaw hadii kale inaad baxdo ii sheeg ya sama hatta waxa arkaysaa macalin tacsiib ku dhacday oo leeyahay maxaa uu ma wees goobaha kalena wali qofka laga heli karaba اسبوع جانس وهلي كارو وحتى يعني سنه كبير وهلي كارو marka wax kale faa'iido heli karo waagi hore marka waxyaabo kale oo macalinka waagi hore micno u lahaa oo hadda micnimada bil xakameynta ciidada macalinka heli karo karaamada macalin darata awood bayso macalin la dilay oo ilaa hadda dawladdiisan soo qabanin waxyaabaha anaga marka macalimiin aan ka xognahay kamida sidee marka adiga ugu dhiirnaa kartaa waagi hore macalin marka aragta arday waa dhuumi jiray macna soma maxaa soo socday jir wala soo jir wala gaba jiri hatta soo kutumeen maanta heer waxa la maraa in toore in la imaado macalinka la geliyo macalinka marka asoo wax ku filan heli karin sharaftiisi maamulku uusan wax fiican ka heli karno qadarin ka heli karin ardayda asiga bare oo maanta maxay ahayd 1 iyo 2 iyo 3 iyo ba iyo ta iyo u bilaabeen 2 iyo 3 iyo 4 u bilaabeen mid tooriyeen ay tahay way adkaanaysaa marka waxaan dhiirigelinaynaa in waxaas wax laga qabto labana waxa kale dhiirigelinayaa isla macallimiinta waro dadkan haday xumaadaan adaa een ku ah sababtoo adaa laga rabo inaad waa productiga marka productiga xumaadana ha u eensani Soomaaliya waxay dhihi jirtay waxay dhahdaa fartaada xun farqaaga ma harto marka hadii de ardadeenu seen ka rabna wayni hadii maamulayaasheenu seen ka rabna wayni hadii bulshadeenu seen ka rabna ka wayni hadii dawladdeenu even seen ka rabna ka wayni hadana anaga soo saaranay marka anaga dib aan isku noqono oo aan isku dayna ina waxsan oo na sameeyo aan soo saarano si ay mustaqbalkeena u hagaagsano waana ogow macallina waxaan ka dhageystay macalinimadu waa shaqada daawada wuxuu dhahay macallin cudurro waaweyn ku dhacay lama helo macallin hatta sakaraad ku dhibtiyo wax weyn ku dhacay lama helo marka macallimadu waa daawo saha loo arko waana ajar badan tahay oo dhammaan nabiyada معلم بيوضع هاي أستاذ إذا ما سنتظر استضاف هيلا وبرنامج كأذنين كأفتيمدي برنامج كان حلقة دي تاني جيكا حكمة الحوار جيكا تاني كأجدا أنتي حلقة صدهاتو إيكا كل معنا ما يسلنا رمضان كريم إذا ما سنتين شكرا جزيلا